dowladda Turkiga ayaa soo saartay warbixin ku saabsan dilkii Khaajooji iyo sababta loo waayay hilibkiisa markii la dilay kadib iyadoo dowladda Sacuudiga lafteedu sheegtay inay jirto sabab keenaysa in la waayo hilibkiisa. Khaajooji oo ahaa wariye saaxiib la ahaa madaxweynaha dalka Turkiga ayaa Yaasiin Aktari oo ah la taliyaha madaxweynaha dalka Turkiga waxa uu sheegay in wariyaha la dilay kadibna la jarjaray hilibkiisa kadibna la shiiday sida uu sheegay isagoo la hadlayay wargeyska Haarid. Waanu ogeyn in la googooyay jirkiisa Khaajooji laakiin hadda waanu aragnaa inuusan jarjarid oo kaliya ahayn dilkaasi waa la shiiday jirkiisa sida warbixinta ay sheegayaan si ay u fududaato in la qariyo isla markaasina Sacuudigu oo qariyo ayuu yiri la taliyaha madaxweynaha dalka Turkiga. Saraakiisha baaraya dilka ee dalka Turkiga ayaa Jimcihii sheegay in la jarjaray Khaajooji kadibna acid iyo aalad kale oo baabi'inaya jirkiisa loo isticmaalay iyadoo aysan ahayn wax hal maalin kaliya lagu qorsheeyay dilkaas noocaas ah balse horey loogu diyaariyay qunsuliyadda in maalin la dili doono balse wuxuu dilkaasi fududaaday markii uu booqday Khaajooji safaaradda. warbixinta naxdinta leh ugu dambeysay ee taxanaha ah oo ay sameeyeen mas'uuliyiinta dalka Turkiga ee ku saabsan dilka ayaa cadaadis dheeraad ah saaraya maamulka Sacuudiga. Waxaa lagu eedeeyay Sacuudiga in ay ka dambeeyeen baaritaano isku day marin habaabina si ay u ilaaliyaan in si fudud lagu ogaado dilkaas. Turkiga ayaa intaas ku daray inuusan ahayn nin mas'uuliyad qaadi karaya boqortooyada dalka Sacuudiga Crown Prince Mohammed bin Salman. warbixinta ay qoreen Jimcihii Washington Post iyo New York Times ayaa sheegaya in uu Sacuudigu u sheegay madaxweynaha Mareykanka inuu Khaajooji ahaa nin khatar ku ah sirta Sacuudiga iyo Mareykanka ka dhaxaysa isagoo Mareykanku ku qancay dilkaas inaan la boonboonin. Turkiga ayaa sheegay inay nasiib darro tahay dilkaas foosho xun inuu ka dhaco ama in laga soo abaabulo meel ay ku yaalaan laba meelood oo barakaysan oo Islaamka meel weyn kaga taala. waxaana dowladda Turkiga ay sheegtay in la shiiday hilibka Khaajooji kadibna la burburiyay iyadoo halkaas hilibkiisa uu ku dhamaaday. waxay sidoo kale ku eedeeyeen maamulka Donald Trump inuu qaatay go'aan ah in heshiisyada hubka Sacuudiga iyo in ay iskaashi dhow la sameeyaan Prince Mohammed si ay ula dagaalanto dowladda Iiraan isagoo Mareykanku aaminsan in la dagaalanka Iiraan qofka uu isticmaali doono uu yahay Mohammed bin Salman. geesta kalena dilka Khaajooji iyo go'aan hore uga soo baxay dowladda Soomaaliya ayaa u muuqday inuu saameyn ku yeeshay Soomaaliya. dilkaas kadib Turkiga ayaa u yeedhay safiirkeedi magaalada Muqdisho ka joogay iyada oo muddo 7 ku dhow safiirka Soomaaliya ee Turkiga uu ka maqan yahay magaalada Muqdisho. maalmihii ugu horeeyay ayaa waxa la hadalhayay in la bedeli doono safiirka Turkiga ee magaalada Muqdisho Olga Beger balse waxaa kadib muuqanaysa inuu saameeyay hadalkii dowladda Soomaaliya ku taageertay dowladda Sacuudiga. Turkiga oo gacanta ku haya degada Muqdisho garoonka diyaaradaha iyo ilaa 3 isbitaal oo Muqdisho ku yaala ayaa laga xabsi qabaa in xiriirka Soomaaliya hakis iyadoo Turkigu ka xumaaday go'aankii dowladda Soomaaliya ay qaadatay. Turkiga ayaa sidoo kale la wareegay tababarada ciidamada dowladda Soomaaliya ee ay hore u tababari jirtay dowladda Imaaraadku kadib markii khilaafaad soo kala dhexgalay dowladda Soomaaliya iyo waliba dowladda Imaaraadka. ilo xogogaala ayaa sheegaya in dowladda Soomaaliya rajeynayso inay dib uga laabato go'aankeedii ay ku taageertay dowladda Sacuudiga. waxaana la sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo toddobaadkan uu booqan doono dalka Turkiga isagoo kala hadli doona xiriirka labada dal.